waxaan is leeyahay intii hadda aan hore u dhaqnay ama walaaleen ciidamada Kenya soo galeen iyo ciidamadii hore ee ka dagaalamayay oo ahaa ciidan TFG-da ay leedahay oo ciidamada dawladda ku meel gaarka iyo ciidamada Raskamboni iyo dawladda Kenya ciidanka militariga Kenya ama isla hawl galeen wax badan ma isla hore baa loo dhaqaaqay anagu waanu ku eedeynaa Kenya inay nagala qayb qaadan weydii amniga oo iyadoo shabaab iyo cid waliba ay dhibaato ku hayso ay waxba nagala qaban weydii marka anagu waanu eedeynaa Kenya waxaan ku eedeynaa dagaal baanu ku wada jiray hal cadow baanu lahayn shabaab aan la dagaalameyn way naga istaagtay way diiday inay nagala qabato dhibaatadaana haysatay iyo cadowga banaanka imanaya shabaab iyadoo wax badan ka taxafudaysa marka AMISOM waan codsanayaa in mandate-keedii dib loogu noqdo sababtoo dagaalkan ku wada jiray macnihiisa oo dhan baa meesha ka baxay inay nagu fiirsato iyadoo shabaab la soo weerarayaan meydkoodii la hayo maxaabiistoodii la qabanayo dhaawacoodii la hayo ay nagu fiirsato cidda markaa Kenya dagaalka la gashay shacabka magaalada degan baa la weydiinaya Kenya inay dagaal ku shirtayeen waxaan mar kale u mahadcelinayaa dawladda Kenya oo islaahay xaqiiqatan wax badan bay markii hore idin kala qayb qaadatay taakulaynta markii dambana ay naf iyo maalba hore u soo gashay oo waan islaahay wax badan bay iyada laftirkeedu mahadcelin ku mudan tahay waxa ay geysatay iyo talaabada geesinimada ay qaadatay oo ayna ku ekaanin iyada oo maalinba dhibka laga sameeyay ay sir walba dhibkan idinku iska fogeeya Soomaalida dhibka lagu hayana ka kor qaado inay nagala qayb qaadato iyadana waan